ma doonaysaa inaad ogaato waxa subaxii gaaska kugu kiciya? ma doonaysaa inaad ogaato dhibaato iyo dhibaato darro midka ay yihiin shaaha ama kafeega? haddaba muuqaalkeenna maanta ayaan kugula wadaagi doonaa waxa khubarada caafimaadka ay ka dhaheen cabista shaaha ama kafeega calooshaada oo maran. ka hor muuqaalka, haddii ay tahay markii kuugu horreysay channelka aadna danaynayso barnaamijyada caafimaad oo caankani oo kale ah, fadlan like dheh, subscribe-na saar channelka, gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelinno ee waxtarka leh. aan bilaabo fiidiyowga. assalaamu calaykum. inta badan dadka marka ay kacaan subaxii waxa ay ku bilaabaan afkashigooda dhanka cuntada ah shaah ama kafee. dabeecadda nuucan ah ayaa leh dhibaatooyin caafimaad oo la soo darsa qofka subax kasta ku dhaqaaqa falkan cabista kafeega ah. inaad cabta adigoo baahan shaah ama kafee ayay dhibaato gaartaa dahaarka caloosha ama difaaceeda, taas oo qofka ku keenta in caloosha dheefshiidkeedu uu qarimo kana dhasho waxa loo yaqaan laabjeexa ama holanka laga dareemo dhuunta dhanka ku aadan xabadka iyo sanbabada. sidoo kale qofka waxaa ka lumaya joogtaynta inuu shay qabto, waxaana badanaya cabsidiisa iyo walwalkiisa. intaasi waxaa dheer, kafeega ayaa badiya garaaca wadnaha qofka joogteeya subaxii asagoo calooshiisu ay maran tahay iyo ayadoo buuxdaba, taas oo qofka ka dhigta mid mar walba kacsan oo cara ay ka muuqato. khubarada qaar ee caafimaadka ayaa ku talinaya cabidda kafee ama shaah inay habboon tahay in la cabo goortii ay calooshaada wax kaga hormaraan ama barqadii markii aad quraacatid kadib. cilmi baarisyo badan oo la sameeyana waxa ay sheegeen in dhadhanka macaan ee wanaagsan oo uu leeyahay kafeegu inuu sare u qaado soo daynta aysidhka ama gaaska caloosha. sidaa la ajligeed, khubaradu waxa ay sheegeen in cabista kafeega caloosha oo marani ay tahay khatar weyn oo aad naftaada u geysatay. sababta sidaani loo yidhi ayaa ah maadaama aysan jirin cunno ka difaacda caloosha aysidkaas ama gaaskaasi badan ee isaga soo dabadhacaya caloosha gudaheeda markii ay faaruqa tahay. dhibaatooyinka dheefshiidka ee uu sababo kafeega ayaan ku ekayn cunnada ka hor, balse way jiri kartaa dhibaato dheefshiid cunnada kadib. si guud, dadka qaar ayaa caadi ahaanba dhibaato kala kulma kafeega haddii ay dheragsan yihiin, iyo haddii kaleba waxa ayna dareemaan dhibaato dhanka caloosha ah markii ay cabaan. ka shaqsi ahaan, waxaa kula gudboon inaad kala garato waxa ku dhiba iyo waxa kuu wanaagsan. kafeegu haddii uu yahay mid mar walba saamayn caafimaad darro kuu geysta, ka fogow oo ha u dhowaan. dhakhaatiirta qaar ka mid ah oo baaris ku sameeyey kafeega ayaa waxa ay sheegeen in cabista adigoo baahan kafee uu badiyo dhacaanada kor u qaada isku buuqa ama istareeska waxa afka qalaad loo yaqaan, sida dhacaanka kortisoolka. dhacaankan ayaa laga yaabaa dadka ku cusub kafeega inuu kor u kaco, ayay leeyihiin khubaradan. sidoo kale dadka sida joogtada u caba kafeega ayaa laga yaabaa inaan lagu arkin kortisoolkooda oo kacsan marmarka qaar. kafeega ayaa waxaa ku jira maaddo kafayiin la yidhaahdo oo uu qofku la qabsanayo jirkiisa, kicinaysana kiimikooyinka maskaxda qofka ilaa uu ka gaaro inuu kafeega ka maarmi waayo, kadibna ay dhacdo inuu sii bato baahidiisa cabista kafeega. ugu dambayn, wax kasta oo aad u aragti inay dhaawac
iyo caafimaad darro kaaga imaanayso ka dheerow oo ka taxaddar caafimaadkaaga. Muuqaalkeenna maanta ee ku saabsanaa kafeega intaasi ayuu ku egyahay daawade. Fadlan haddii aad wax ka faa'iiday muuqaalka, like saar. Hana iloobin inaad subscribe saarto channelka si aad noogu soo biirto. Gambaleelkana furo si mowduuc kasta oo aan soo gelino uu kuu soo gaaro. Mahadsanid. muuqaalka inoo xigay insha Allah.